kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni aafanka iyo caalamka maxaa ka cusub haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan janalkeyga subscribe saar like iyo share iyo comment kama marno marka koowaad waxaan ku bilaabanaa ayushman quraanaha filimkiisa baala ayaa maalinkiisa labaad sameeyey ganacsi heer sare kadib markii uu keenay 15 karoor sabdigiisii koowaad wuxuuna sameeyey 60 boqolkiiba sare u kacay mashruucan ayaa guud ahaan hindi oo dhan ganacsi heer sare ka sameeyey waxayna ka dhigan tahay mar kale ayushman quraanaha filimkiisa inuu hiid noqon doono waxaa xusid mudan filimka lagu magacaabo baala haatan muddo 2 maalmood inuu soo xareeyay 24 karoor iyo bar mashruucan wuxuu noqon doonaa hiid dhammaystiran haddii maalinka isniinta laga bilaabo si fiican isku celiyo sidoo kalena meesha lagama saari karo ayushman quraanaha filimkiisa dream gal ganacsiga uu sameeyey mid lamid ah filimka baala inuu sameyn doono xidigan waxaa muuqata daawadayaasha sumcad ballaaran inuu ka abuurtay kadib markii lagu bartay inuu la imaado aflaan tayo wanaagsan wadadaasna kama leexanaya maadaama baala aad loo ammaano fariintiisa hambali ayaa leenahay ayushman quraana haddii aan dib idiin xasuusin nidaamka ee shabakada box office india shaaca ka qaado filimka baala wuxuu keenay jimcadiisii koowaad 9.50 karoor ama 9 karoor iyo bar halka sabdigii uu keenay 15 karoor wadarta guud muddo 2 maalmood wuxuu soo xareeyay mashruucan hirgala 24 karoor iyo bar ayuu soo xareeyay markaan update idin ka siina filimka baala ay maalinkii saddexaad ganacsiga laga filanaya inuu sameyn karo mashruucan hirgalay maanta oo axad waxay u tahay maalin heer sare markii la fiiriyay filimka baala inuu ku socdo darajada 20 karoor sidoo uu ku gaari lahay waxaan laga cabir qaadanaya maanta dadweynaha dhan shaqada inay ka nasanayaan waxbarashada sidaa darteed subaxdii hore xilliga hindiya filimka baala wuxuu ku furmay 50 ilaa 55 boqolkiiba halka sabdiga uu ku furmay 40 boqolkiiba doorkii wuxuu gaaray 75 ilaa 80 boqolkiiba waana halkii ugu sareysay ka sabdigii 50 boqolkiiba uu ku furmay sidoo kale fiidka xilliga hindiya oo xataa wuxuu gaaray filimkan 70 ilaa 75 boqolkiiba waana halkii ugu sareysay waxayna ka dhigan tahay filimka baala maalinkii saddexaad inuu u tartamay sidii uu 20 karoor ku gaari lahay laakiin sida maangalka macquulka waa in 18 karoor ilaa 19 karoor uu keeni karo haddii galinka dambe caawa hindiya ganacsigiisa uu si adkaado filimkan meesha lagama saari karo 20 karoor filimka inuu keeni karo waxaana muuqata saddexda maalmood ugu horeysa ayushman quraanaha filimkiisa 44 karoor ilaa 45 karoor inuu keeni doono markaan update ka siina filimka Houseful 4 sabdigii saddexaad ganacsiga uu sameeyay mashruucan wuxuu sameeyay 40 boqolkiiba sare u kacay wuxuuna keenay 2.75 karoor waxay ka dhigan tahay filimkan haatan inuu soo xareeyay 189 karoor maanta oo xad waxaa la filaa Houseful 4 ganacsi adag inuu sameyn doono taasi oo ka caawin doonta filimkan inuu noqdo Akshay Kumar midkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyay ebed asagoo dhaafi doona Misha Mangal 192 karoor iyo bar keenay hubanti ahaan Kumar filimkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyay Houseful 4 ayaa noqonaya sidoo kale toddobaadkan gudihiisa ama toddobaadka saddexaad ee filimka Houseful 4 tiyaatarada saaran oo darajada 200 karoor ku gaari doona Kumar filimkiisa kaliya waxa la eegi doona waxay tahay xujada hortaala Houseful 4 ma soo qaban doona filimka Golmaal Again oo 205 karoor keenay kaasi oo ah aflaanta shactirada midka lacagaha ugu badan soo xareeyay ama comedy ah Houseful 4 hadii uu darajadaas dhaafan waxay u noqon doontaa mudnaan kale u gaar ah kaliya halkaas xuja oo dhiman filimkan Houseful 4 hambali ayaa leenahay Akshay Kumar iyo kooxdiisa oo filimkoodii mar hore hiid dhameystiran noqday haatan wuxuu ku socdaa sidii uu mashruucan super hiid ku noqon lahaa caadiga waxaan la wadaagnaa today in history maanta kale taariikhan aflaanta soo baxay maanta kale waa maalintii shahidka bur uu la imaada filimkii blockbuster ka ah FIFA iyo arrimaha qoyska jaceylka ah waxaana kula jirta Amrita Rao filimka FIFA cimri ahaantiisa wuxuu soo xareeyay 31.56 karoor ayadoo la daawado 10 November 2006 ama 13 sano ka hor filimkan waxaa lagu qarash gareeyay 8 karoor oo kaliya sidaas ayuu blockbuster weyn ku noqday dama 19 karoor bar kooxda cajaradaha qeybiyan ka heleen FIFA waxaa tigid u goosteen 10,241 kun oo qofood lacagtii 31 karoor bar uu keenay FIFA 13 sano ka hor maantadan waxay u dhigmataa 102 karoor sidoo kale 10 November 2006 ama 13 sano ka hor FIFA waxay isku dhaceen filimkii shactirada badnaa abna sabna money ee ratashmuuq hogaamiye ka ahaa sidoo kale Sunil Shetty iyo Jilayal kalena door muhiim ay ku lahayn haddaba filimkan dashmuuq marna gabadh iska dhigay marna dabcan atoor caadi uu ku matalay wuxuu noqday mid guuleysta oo samihiid ah wuxuuna soo xareeyay 14.40 karoor ayadoo 9 karoor bar lagu qarash gareeyay abna sabna money waxay kooxda cajaladaha qeybiyaan ka heleen 5.73 karoor filimkan waxaa tigid u gooseen 3,562 kun oo qofood sidoo kale filimka abna sabna money lacagtii 14 karoor uu keenay muddo haatan laga joogo 13 sano kadib waxay u dhigmataa 35 karoor bar ayay u dhigmataa sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filimka Sanjay lagu amaanay ee guuleystay lagu magacaabo Kurukshetra kaasi oo soo baxay 10 November 2000 ayuu soo baxay 19 sano ka hor Kurukshetra wuxuu keenay cimri ahaantiisa 11.15 karoor waxaa lagu qarash gareeyay 8.75 karoor filimka Mahima Jodhary ee ka hela tirisha koowaad kooxda cajaladaha qeybiyaan waxay ka heleen 5.91 karoor waxaa intaas dheer Kurukshetra inay tigid u goosteen 7,969 kun oo qofood lacagtii 11 karoor oo keenay filimka Kurukshetra muddo haatan laga joogo 19 sano kadib waxay u dhigmataa 79 karoor ay u dhigmataa sidoo kale maanta kale waxaa la daawaday filimka Soomaalida agtooda blockbuster ka laakiin gudaha Hindiya flop ka noqday ama ka guul dareystay waa mashruuca J.K. Sharif uu ku xarakeeyay filimka lagu magacaabo Ram Shastra oo dabcan Manisha Koral ay kula jirto filimka Ram Shastra wuxuu soo baxay taariikh ahaan 10 November 1995 Ram Shastra wuxuu soo xareeyay 2.67 karoor waxaa lagu qarash gareeyay 3.25 karoor filimkan kooxda cajaradaha qeybiyaan waxay ka heleen 1.22 karoor sidoo kale Ram Shastra waxaa tigid u goosteen 3,178 kun oo qofood lacagtii 2
67 karoor uu keenay Ram Shastra muddo 24 sano kadib waxay u dhigmataa 31 karoor ay u dhigmataa aan ka reebin sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filimka jacaylka aad iyo aad ku saameynta badan laakiin flop ka noqday nasiib darro waa filimka lagu magacaabo Shaadi Mein Zarur Anna oo dabcan ay wada jileen Raj Kumar Rao iyo gabadha lagu magacaabo Kriti Kharbanda filimkan fariintiisa la amaanay ganacsi ahaan wuxuu soo xariirshay 15.34 karoor waxaa lagu qarash gareeyay 13 karoor Shaadi Mein Zarur Anna inuu flop noqdo waxaa sabab u ahayd mashruucan in dabcan kooxda cajaladaha qaybiyaan lacag adag ku iibsadeen 6.85 karoor ee dib kaga heleen filimkan soo baxay 10 November 2017 waxaa tigid u goosteen 1,694,000 oo qofood ugu dambeyntii maanta kale 10 November 2017 waxaa soo baxay filimka lagu magacaabo qariib single oo Irfan Khan hogaamiye ka ahay nasiib dara filimkan wuxuu noqday flop maadaama uu soo xariiray 16.32 karoor 17 karoor ayaa lagu qarash gareeyay filimkan 7.28 karoor ee kooxda cajaladaha qaybiyaan ka heleen filimkan waxaa tigid u goosteen 1,423,000 oo qofood kooyinka koonfur hindi maanta ugu saameynta badan waxay tahay wiilka abtiga uu yahay ninka lagu magacaabo Suldaan Mahesh Babu waa wiilka dhalinyarada ee lagu magacaabo Ashok Gala ayaa si rasmi ugu soo biiray filim jelista filimkiisa koowaadna waxaa daha ka qaadan ama kamerada action dheheen Ram Charan iyo sidoo kale jilaaga awoodda badan ee lagu magacaabo Rana Dagubati tan waxay u tahay sharaf weyn wiilka lagu magacaabo Ashok Gala ee dabcan Mahesh Babu abti u yahay sidoo kale siyaasiga caankana dabcan Jayadev Gala oo aabo u yahay filimkan xafladda loo sameeyay maanta Mahesh Babu wuu soo xaadiray laakiin Ram Charan iyo Rana Dagubati ayaa daha ka qaadan waxayna u rajeeyeen Ashok Gala nasiib wacan wiilkan si weyn ayaa fanka loogu soo dhaweeyay mashruuciisa koowaad nasiib wacan aan leenahay waxaa directorka ninka lagu magacaabo Sriram Aditya halka atrisha koowaad ay ka tahay gabadha lagu magacaabo Nidhi Agarwal oo baryahan koonfur hindi saameyn ku leh maadaama filimkeedii ugu dambeeyay ay Smart Shankar oo blockbuster noqday waxay haatan filimkan ku sameynaysaa 1 karoor ama 140,000 oo doolarka Mareykanka ay ku qaadanaysaa nasiib wacan ayaa leenahay Ashok Gala oo lagu soo dhaweeyay fanka Telugu ama Tollywood marba haddii filimkiisii koowaad ay daha ka qaadan Ram Charan iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Rana Dagubati superstarka Wenditor Shiva Raj Kumar ee aad iyo aad looga dambeeyay dhinacaasi Canada ama shirkadda loo yaqaano Sandalwood gaar ahaan reer Karnataka xaruntooda Bangalore tahay ayaa aad iyo aad loo hadalaya filimkiisa xiga ee dhawaan la daawan doono kaasi oo lagu magacaabo Ayushman Bhav filimkan Ayushman Bhavaditor Shiva Raj Kumar wuxuu ka dhawaajiyay mashruucan uu noqon doono hit weyn maadaama fariintiisa uu asigaba ka helay marka uu dib u daawaday filimkan waxaa lagu casuumay shakhsiyaad badan oo koonfur hindi caanka ah si weyn ayay u amaanay markii ay daawadeen fariintiisa Ayushman Bhav waxaa tiyaatarada la saaray doona 15 bisha November ama jimcada nagu soo fool Editor Shiva Raj Kumar wuxuu ka mid yahay atoorayaasha taariikhda koonfur hindi ugu awoodda badan ninkan shirkadda Canada loogu matagay asiga iyo Sudeep ay halkaas ugu awood badan iyo wiilka dhawaanaha soo shacab baxay Rocken Star Yash oo filimkii KGF chapter 1 ku soo caan baxay nasiib wacan aleena Editor Shiva Raj Kumar iyo filimkiisa Ayushman Bhav maxaa ka xiisa badan superstar Sanjay Dutt iyo sidoo kale saaxiibkiisa Arshad Warsi mar kale ka qosol siin doonaan balse markan waan ka xunnay taxanaha Munna Bai ma aan baqaadi doonaan labadan waxay nooga yaabsadeen taxanaha Munna Bai ee classic ee hore u wada sameeyay Munna Bai MBBS oo sanadii 2003 hiid noqday iyo laga raho Munna Bai oo 2006 blockbuster weyn noqday ilaa iminka waxaa la sugayay inay sameeyaan qaybta saddexaad ee Munna Bai ama Munna Bai 3 laakiin director Raj Kumar Hirani wuxuu ku dhawaaqay filimkan dib u dhac inuu ku imaado maadaama sheekada laga qoro uu ka heli waayo dibna ugu laaban doono uu sheeko kala diyaarin doono darteed Sanjay iyo Arshad Warsi nasiib wanaag filim cusub ayaa la wada dhiibtay filimkan waxaa directorka labada aan kala dhicin ee lagu magacaabo Farhad Sajid filimkan waxaa la sheegay Abriil 2020 duubis in lagu bilaabi doono sheekada xiisaha badan waxay tahay filimkan Sanju Baba wuxuu ku matalayaa Indol waxaana garab siin doona Arshad Warsi oo indhow ah dadkana ma fahmayaan asigoo Indol ayuu tuugay dadka ayuu dhacaya Arshad Warsi aan garab siinay waana filim kale oo shactire iyo iska daw wareeg ah nasiib wacan leenahay Dutt iyo sidoo kale saaxiibkiisa Arshad Warsi oo mar kale shaashada ka soo wada muuqan doona daawadayaasha qiimaha badan Saif Ali Khan wuxuu shaaca ka qaaday inuu iska diiday filimkii classic ah Rockstar ee Ranbir Kapoor abaalmarinada kala duwan ku qaatay jilaa kasta calafkiisa ayuu cunaa sidaa darteed Saif Ali Khan wuxuu haatan ka dhawaajiyay filimka classic Rockstar inuu director Imtiaz Ali asiga u soo bandhigay laakiin uu ka helo waqaabka sheekada loo dhigay ugu dambeyntiina filimkan waxaa calfaday Ranbir Kapoor oo ku qaatay abaalmarinta atooraha ugu wanaagsan shirkadda Filmfare Awards bixiso sidoo kale filimkan guuleystay Ranbir Kapoor waa midkii uu ku saldhigtay Bollywoodka Saif Ali Khan wuxuu yiraahdaa director Imtiaz Ali waxaan saaxiib dhow markii aan u sameeyay filimkii Love Ajkal sanadii 2009 kadib wuxuu ii keenay sheekada filimka Rockstar aniga ayaan ka heli waayay kadibna waa iska diiday sidaa darteed wuxuu dhahay filimkan wuxuu calafkiisa noqday Ranbir Kapoorna magac inuu ku yeesho kama xum ayuu ka dhawaajiyay Saif Ali Khan atoore ee Tamil Nadu ama koonfur hindi gaar ahaan fanka Hollywood si weyn looga tixgeliyay Fishal iyo Vijay Sethupathi ayaa diiday mid walba filimkiisa dib inuu dhigto waxay ka dhigan tahay marka in Fishal iyo Vijay Sethupathi jimcadan tiyaatarada ku dagaalami doonaan Fishal wuxuu wataa filimka actionka ee Atirashe Tamanna Bhatia kula jirto halka Vijay Sethupathi asagana uu wata filimka lagu magacaabo Zanga Thamizan filimkan waa filim action iyo sidoo kale sheeko qiiro badan waxay ka dhigan tahay marka labada saaxiibada inay masraxa ku dagaalami doonaan Fishal wuxuu ka dhawaajiyay asiga inuu taariikh ahaan 15 November hor doortay halka Vijay Sethupathi uu ka dhawaajiyay asigana tiyaatarada asiga saaxiibkiisa ay ku filan tahay marka nasiib wacan lana waan arki doonaa filimada action iyo Zanga Thamizan midkii guuleysto barnaamijkan waxaan ku soo gabagabeynaa in si rasmi shaaca loo qaado superstar Akshay Kumar inuu sameeyo
yahay film action khiyaano isku jiro sidoo kalena sirdoon oo ku jilayo mashruucan waxaa lagu magacaabaa Bell Bottom filimkan hore aynu kula wadaagno oo dabcan Nikhil Advani ayaa wuxuu ka yahay soo saare filimkan Kumar haatan si rasmi ah aragtida koowaad laga soo bandhigay waxaan laga soo bandhigay aragtida koowaad idin muuqato filimkan sheekaan wuxuu ku saabsan yahay dhacdooyin dhaca 80-maadkii Akshay Kumar uu ku matalay basaas filimkan waxaa si rasmi ah shaaca looga qaaday Akshay Kumar oo duubis ku bilaabi doona sanadka dambe waxaana tiyaatarada la saari doonaa 22 Janaayo 2021 ayaa tiyaatarada la saari doonaa laakiin sanadka dambe ayuu duubis ku bilaabi doonaa Akshay Kumarna markaan waxaa muuqato inuu yahay on fire ama laba celin karo maadaama mar walba marka ka dambeysa mashaariic weyn uu gacanta ku dhigayo markaana filimka Bell Bottom ayuu gacanta ku dhigay waana mashruuc dib loo sameeyo oo shirkadda Kanada hore u sameeyay dhankaasi Koonfur Hindiya asigoo Bollywood ayuu sameeyaa filimkana sida shaaca laga qaaday sanadka dambe lama daawan doono ee sanadka xiga la daawan doona 22 Janaayo 2021 daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena afankii caalamka maxaa ka cusub intaas aan kusoo idlaynayna haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu calaykum waraxmatullahi